qabanqaabada horta waa barnaamij moogtay waa 3 sheekad markay dhamaatay waxay ku abaanan doontaa baarlamaanku inuu codeeyo gacanta la taagi doonaa kadib waxay noo soo bixi doontaa natiijada ugu dambaysa iyo meesha loo batay marka dood cilmiyeedku khulaasada ama gunaanadka qabanqaabeyaasha waxaan ka codsanayaa inay la wadaagaan dadweynaha ama jaamaahirta ka soo qayb galay sida ay u dhacaysana markaan siira qiyaasay waxay shacabku u badan yahay in la isku wadi karo marka laakiin codkay ka soo bixi doontaa hadhow markii la codeeyo gacanta taaga inta qabta markii la yiraahdo ayay ka soo bixi doontaa ka hor dhici maayo natiijada ficlan horta meesha waxa yaalo waxay tahay hawsha taala dooda dhageysanayseen waa dood qof walba yani macquulnimada arinta ay tahay uu sheegayaa waana wax jira labadaba laakiin waxa isweydiin leh yani qaarna dib ayaa jira ayaa leeyahay hadii la isku wado waxbarashada iyo guurka culays ka badan hadii aan la isku wadin ayaa meesha ku jira waa inta on marka halkaas waxa imaanaysa marka dadku laba un bay noqonayaan qof u bareeraya meesha adag sidadan waxa la yiraahdaa dheef ayaa loo yeero waxa la dheef markii loo yeeray dib gadaashiis ay hoob ka tiri marka sida la isku ogyahay waxay tahay meesha adayga uu jira ayaa la doortaa markii ummad laga hadlaayo hoggaankeeda iyo meesha loo socdo ninkii shaacirkaana wuxuu yiri idaa qaamarta fi sharafin maruumin fala taqnac bima duuna an-nujumi fad'am al-maut fi amrin haqirin ka da'am al-maut fi amrin 'azim yani hadaad hawl qabsanayso meesha ugu sareysa qabso adiga maxaa yeelay kulli adduunkan lama joogaaye dhimashaad dhamayso wal dhimanaya laakiin qofna asoo ku shirin isbaaro dhiganaya ayaa lagu dilayaa oo ku shirin u dhintay qofna asoo ummadiisa dhisaya ayuu dhimanaya dhimashadu waa mid laakiin meesha lagu dhintay ayaa kala duwan marka meeshan yani markii laga hadlayo xagga adayga iyo xaggaas waa in la doorto xagga adayga oo isku wadka ayaa adayga uu ku jira xagga kalena in loo tafarruqo waxbarashada oo wixii mashquuliyada oo qofku ka celinaya uu yani iska yareeyo ayadana waa arrin jirto waa aragti la qabo imaam shaafici ayaa waxa hadaladiis kamid ah wuxuu yiri law kulliftu basala ma hasaltu mas'ala hadii la igu kallifi lahaa oo la idiri lahaa hal basal ah soo shaqeeyo hal basal meel ka keen ma hasaltu mas'ala hal mas'ala ma ana tahsiiliyan ma ana qoreen يعني هو متفرق للعلم أيوها علم أيوه تفرقي إمام نووي أو تقانان دوري أفتنا أيوه كل إنتي أسون جورسين أيوه إنتي علم وكتير والأركيسان مركا فضل بقية تغيير هذا يمبادئ هذا أيه لا هاي يعني أنا كل يوم حنقصه جوجنا ويجر تعرف تاسوا أرضية إحنا ولا كتبتها أنا وحبر الشيء السودان أيه هاي السودان حنقصه برتي وحبر دولها من يوم كالسعودان جارهان قبلها مركا الجوجو أو كله oo ilaa waxay jecel yihiin ay digriga ugu dambeeyo oo PhD ga ay qaataan markaas kuwaas yara dhaliilaya oo dhahayo waqtigoodin dhaafay sida Soomaalidu bay dhahdo cimriga gabadh uu kooban yahay laakiin kan ninku waxa laga yaabaa inuu muddo sii jiro inta hadaan laga faa'iideysan fursadii waqtiga ayaa ka tagaya yaa waxay dhahayaan hadaad waxbarashada sii wado oo ilaa doctoraa PhD waad qaadatay waad dhameysay kadib guurka uu imaado adigu xilliga aad joogto iyo daadana way dheeraanaysaa markaas waxay dhahan shahaadooyinka aad qaadatay darbiyada ayaa lagu sharxaa markaas waxay dhahan marka darbiga hadii PhD iyo masterki iyo wax oo dhan darbiga lagu dhijiyay shahaadadaasi hadhow marka duqowdo sariirta marka soo dejinayso marka shahaad sariirta wixii ka soo dejin lahay ayaa loo baahan yahay almuhim waa dood aad u qiimo badan oo saas ah yani isleedin waxa hadda iga muuqanaysa dhinac anoo muujinaya inay labadaba ay hawshooda iyo gartooda ay leeyihiin laakiin haddana markii labadaba la sheego waxaa jirta meel loo janjeero aan idilaan la qaba aniga marka waxa waaye maxaa yeelay waxbarashadiina way wadaa arooskeedina waan joogay marka saas daraaddeed in hawsha najaax ay jirto waa saas aniguna sidaas oo kalena ahaa aniga oo jaamacadda aan bilaabin ayaan guursaday anoo jaamacadda dhiganaya ayaan ilmo dhalay yaraanta ku guursigu wuxuu ku fiican yahay walaalkiis dhaad noqonee marka laga faa'iideysto waa mahadsantii adigu bilow wax ku dhamaystir ma weyside ay mashruuc waasaas
hadda adigu bilowdo dadku way arkayaan way kugu dhamaystirayaan way kugu soo biirayaan laakiin bilowga hore marka waa fikrad fiican oo gurisama ay wado way ugu talagashay in dadkaas hawshaas loogu qabto dabcan geedii iyo asxaabtiisa iyo anigoo maalinkii la soo aasaasay ilaa hadda gurisama qayb ka ah oo muxaadarooyinka iyo wixii ku saabsanna yani wixii tala ah iyo waa hawshaas waan wada qabanaynaa marka waxaa la rabaa bal horta Soomaali arrintan way inagu cusub tahay dadka baahida gaarka ah qaba inaan wax u diyaarino waa arrin aan bilow hore ku bilaabayno saas markii la yiraahdana markaad adigu walaalka aad u kaalmayso oo wax bilowdo adna way ku iimaaneen dhalinyarada kale ee macnaha oo ayagana saas oo kale ah waxaan dhahaynaa face 2ga wanka kaas markaan ka dhigno oo la isbarto oo war dadkan hawlay qabanayaan saas ay noqoto waxa laga yaabaa baahida gaarka ah inta qabto intii laga bato faa'iid uu soo haro haddana in la yiraahdo yaa ku soo xiga oo la yiraahdo مثلا dad waxa jira shaqaysta مثلا oo ama مثلا waxoogaa yar oo lacag ah oo yani uu wax ku biilan karo uu haystaa laakiin taklifada hore ee hal mar aan isugu aadanin oo wixii sariiraha lagu gadi lahaa iyo wixii laakiin haddii oo intaas la dhaafiyo waa baawur yar oo bacaad ku jira wax yar oo wuxuu u baahan yahay marka bacaadka ka bixiya marka inta bacaadka in laga bixiyo u baahan ayaan bacaadka ka bixinaynaa kadibna ayaga ayaa baabuurkooda sii wadanaya marka taasna u diyaar garooba idinkana yani dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba arrintaasi yani halaga qayb qaato leena waxa la moogtay adabkeena Soomaaliga ama suugaanta qofka curyaanka ah waxa moogtay cagal looma waayini caynkaas waxa loo yiri kuwa carray inay ku cibra qaataan Soomaa marka waxa qofkan in dhoolaha ama curyaanka ah dareenkii uu qaba dadkuna inta badan dadkaas aad yani ihtimaam uma siiyaan baahidoodina way jirtaa nabiyana sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhihi jiray ani haddaad isoo raadinaysaan oo xaguu joogaa nabiga dhaysiin dadka tabarta daran dhexdooda iga soo raadiya dadka waaweyn iyo ma ahayn dadka tabarta daran xadiis nabi wuxuu ku sallallahu alayhi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum maladin gargaaraya risqi maladin siinaya illa kaalmaynta aad kaalmaynaysaan dadkiina tabarta daran safar markii la yahayna wuxuu dhihi jiray ad-da'iifu amiiru rakbi qofka uu tabarta daran ayaa dadka lagu jaangoynaya socodkooda ee midka xooga badan kuma jaangoynayo marka inaan halka ka soo bilowno oo yaa inoogu tabar daran oo duruuftaana ay haysaa oo marka hore faatixatu khayr aan barnaamijka oo dhignaa marka dambe oo dadku ay bartaan inay wax la qabsan karo oo qoysaskii yani saasna la isku sii daba daartaa marka runtii guurku fiican yahay ummada dhismaysa ana waxaan soo diyaarinayaa hadda intii aan isku meheriyay ama hado hoolkan ama hoolal kale doorasho markii la gaaro ayaga leen ka bilaabo codka inay siiyaan marka ayaga tirada ka batay marka codadka soo socda waxa lagu tartami doona qoysaska la dhisay iyo dadku yani ka imaaday marka wax la maal gashado beer waad aragteen wala maal gashtaa laakiin waxa ka fiican wax la maal gashado bini aadamka iyo dad hadaad hesho xoolo ka soo helaysaa marka dad si aan u maal gashanaa ayay barnaamijkeenu guriyasamo oo ku saabsan yahay maal gashigaas oo bini aadam lagu soo saarayo warshad hadii la hadda maanta waa la furaaya oo yaa isqoraayo oo share ku yeelanaya bishiina faa'iidooyinkaas ka imaanaysa waxa dhici karta dadku inay ku soo ordaano faa'iidaas ay raadiyaan laakiin maanta anna waxaan dhisaynaa oo diyaarinaynaa warshad bini aadam soo saarta ayaan rabnaa in la maal gashto marka warshadaas bini aadamka soo saaraysa maal gashigeedu wax walba uu ka qaalisan yahay dabcan mid kale ku saabsan oo ah hadda la sameeyo hadana bari hadda isfuraan kuwa hadda caadiga isu guursaday ee guri sameeyay isu guurininba kuwa isfurana way jiraan kuwa aan isfurana wada joogana way jiraan wixii taas ku saabsan waa qof iyo xigmadiisa iyo sidoo u dhaqmaayo marka taasi wax la damaanad qaadi oo yani la dhihi karo ana ballan qaadayo dadkaas waxba kama imaan doono taas ma dhihi karno sida dadkoo dhan ay wada furan tahay in wax ka imaado ayaa bini aadamkaas wax uga imaanaya inay hagaagto oo fiicnaatana waa sidaan rabno wayna fiicnaan karaan waxna uu ka soo noqon karaa nolosha dhan ayaa saa ku wada xiran marka waxba yaan laga cabsanin haday saan noqoto ama ay taasna ka imaataa inaga taas dambe la inooma dirin amal iyo shaqaal inoo diray wa natiijatu ala Allah hadan shaqayno oo wax qurux badan aan keeno oo marka horeba aan ka ilaalino yani wixii fashilin lahaa oo aan meel wax u saarno oo wax isku hagaajiyo oo system wanaagsan aan marka horeba aan fariisino waxa la filayaa marka dambe inuu mira dhal noqon doono oo laga faa'iido doono marka soo dhawaada hadan intaydan bixin qof walba wuxuu ku tuuri karo lambaradaas $5 ku tuuri kara si aan u dhahno way bilaabatay oo marka doctor sana telefoonka iyo wixii ugu dhacaayana dhalawda inta iga maqashiya
وما هسنتين صوت دعايا وأنا ماشي كصوم وقت وما هسنتين السلام عليكم ورحمة الله